waxaan u gudbaynaa barnaamijkii ku saabsanaa ganacsiga. waxaan usoo jeedin doonaa walaalkeen Mahad. wuxuu ka hadli doonaa qeybaha kala duwan ee ganacsiga iyo canshuuraadka waddanka iyo waxyaabahaas. Mahad jaamacaddiisa koowaad wuxuu kusoo dhigtay Natal University of Technology. waxbarashadiisii jaamacadeed heerkii labaad wuxuu ka qaatay UNISA oo University of South Africa ah. tiisii saddexaadna wuxuu ka qaatay UCT University of Cape Town. haddana wuxuu masters labaad ka diyaariyaa jaamacadda la yidhaha Assumption University oo waddanka Thailand ku taalo oo balkii distance education uu ku dhigto. marka waa taqaaniin Mahad kolleyba waa ganacsade waddankan muddo badan joogay kaliishii areas u badana. marka saan kusoo dhaweynayaa Mahad Cumar soo kelimadiisa guda galo. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan jeclaan lahaa inaan walaalaha Soomaalida ee halkan caawa maanta kusoo kulmay aan sharaxaad yar ka siiyo arrin ay aad iyo aad ula socdaan oo ah arrinta ganacsiga South Africa. xaqiiqiyan haddii aan nahay Soomaali waxaan wadanahay ganacsato ama waa iska wada agdhownahay, laakiin haddana waxaad moodaa in ay maalin walbaba sharciyada iyo shuruuduhu ay isbedelayaan. marka waxaan u arkay lagama maarmaan inay tahay inaan arrimaha ganacsiga ku saabsan aan wax ka dhaho. kulley projectorka baa noo imaan doona, laakiin waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala horta imise company ayaa South Africa ka jirta oo sharciyan loo aqoonsan yahay. maxaa loo yaqaanaa waxa la yidhahdo limited liability oo macnaha deynta uu qofku qaato amba uu leeyahay iyo ganacsiga xiriirka ka dhexeeya maxay tahay, iyo waxa la yidhahdo mataqaanaa legal entity sharci ahaan kambaniyada gaarka ee legal entity-ga ama mataqaanaa sharciga gaarka oo sida qofka bani aadamka loo dhaqmayo kale maxay kala yihiin. waxaan kaloo ka hadli doonaa haddii uusan ilaahay maya dhihin arrinta ku saabsan canshuuraadka waddankan laga qaado oo ilaa maaragtay 5-6 kala nooc oo stage kale ah. waxaan kaloo ka hadli doonaa arrin canshuurna aan ahayn oo la yiraahdo value added tax oo VAT-ka la yiraahdo ayadana ka hadli doonaa insha Allah. waxaan kaloo ka hadli doonaa sharci hadda soo socda oo ay wasiiradu saxiixeen lana filayo insha allahu tacaala in baarlamaanka mar dhow la geeyo. haddii baarlamaanka la geeyana aad iyo aad ay u badan tahay in la saxiixi doono. haddii la saxiixana dhibaato amba caqabado amba mataqaanaa challenge fara badan Soomaalida ku sameyn doono. kaasna waan ka hadli doonaa, laakiin waa arrin aad iyo aad ugu baahan in maaragtay Soomaalidu aad uga fikirto ka tabaabashayso. haddii aan intaan walow aan ku imaan doono aan waxyar kasii iraado waxaad ogaa doontaan Soomaaliya South Africa waxay ugu dowlad wadamada kale waxay ahayd intaad imaatad irid furato baad kireysto aad fura jirtay. tan hadda waxay diidaysaa intaad imaatid irid iska furatid ganacsi aad iska gasho way diidaysaa. waxay ku qasbaysaa sida wadamadii aan soo marnay oo dhan amba caalamka ka jiro oo dhan shuruudii loo soo mari jiray intaan ganacsi la furin inaad soo martid. marka waa qiyaasi karaysaa waxyaalaha ay keeni karayso. okay, haddii aan types of business entity and regulatory requirements macnaha shuruudaha iyo businessyada ka jira waddanka iyo shuruudaha looga baahan yahay in la maartay la buuxiyo. South Africa waxaa ka jirta 6 company oo kala nooca. mid waxaa la yiraahdaa sole proprietorship macnaha waa sidii Soomaalidu u badan tahay qaarkood waa qof shakhsi ah ganacsi oo leeyahay oo uusan cidna shirka kula ahayn. waxaa kaloo jirta mid la yiraahdo partnership oo ka kooban 2 qofood ilaa 20. Soomaalidu aad iyo aad bay maartay ugu ganacsataa kaas walow isan shuruucda caadiga ay samarin haddana waxay aad u yaqaanaan wayaan. waxaa jirta mid la yiraahdo close corporation ama loo yaqaano CC oo Soomaalidu aad u taqaano walow hadda la xarimay oo dawladdu ay joojisay sanadkii hore, laakiin awood dadku hore u furaa ay ku sii shaqeysan karaan. mid waxaa jira la yiraahdo private company and BTY Ltd Limited waa private company oo shakhsiyaad ay leeyihiin oo laakiin shuruudo gaar oo aan dib ka soo sheegi doono buu leeyahay. waxaa kaloo jira mid la yiraahdo limited liability company
ltd waa kambaniyaasha waaweyn oo aan naqaano oo iyo bangiyada iyo waxaas baa ku shaqaysta oo sheerar gaara iyo waxbaa la kala gataa Soomaalidaana aad uma naqaano laakiin waan ka hadli doonaa wax yar insha Allah waxaa kaloo jira mid la yiraahdo state owned company oo ay dawladdu leedahay oo aysan shakhsiyaad ku lahayn sida Eskom iyo wixii la mid ah kale haddii marka aad u baahan tahay inaad kambaniyaashaas aan soo sheegno oo kale aad magacu aad leedahay ku ganacsatid shuruud waxa weeyaan waa in aad kambaniga la yiraahdo dawladdu ay u qorshaysay oo la yiraahdo Sibro waa inaad ka soo sharciyeysid qofka markuu Sibro oo ganacsiga ka soo sharciyanayo shuruud yar baa looga baahan yahay kood waa inuu mataqaanaa oo xisaabiye oo bookkeeper yar leeyahay shuruudaha kambaniga magaciisa iyo addresska uu geeyaa walow kadibna ilaa 3,000 oo ran iyo wax la mid ayaa ku bixi doona laakiin dib baan soo sharxi doona insha Allah taala afarta geeska jirta waxaa la yiraahdaa legal entity macnaha waxa weeyaan kambaniga dawladdu waxay ula macaamilaysaa sidii qof shakhsi oo kale macnaha ka soo qaad ganacsi wuu gali karaa kambani kale deen wuu qaadan karaa magaciisa oo kale asiga iyo qofka iskalena way kala duwan yihiin macnaha legal entity oo gaar ah weeyaan labada oo maartay dhinaca bidix jirta sole trader iyo partnershipka qofka iskale iyo ganacsigu kala ma baxsana waa isku mid laakiin shuruudooda dib aan soo sheegi doonaa insha Allah wixii la fahmi waayo insha Allah waa ka jawaabayna isla markaaba mid kasta marka waxaan ka sheegi doonaa insha Allah taala shuruudaha iyo faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay eerooyinkan ka hadli doona waxaa kamid ah kambani kasta shuruudaha laga rabo faa'iido iyo khasaarooyinka ay leedahay canshuuraadka laga rabo canshuurta laga qaadayo qaabkee tahay iyo meesha ugu hooseysa iyo meesha ugu koreyso faa'iidada ay leedahay inaad shuruudaha wadanka aad degan tahay aad mataqaanaa laga rabo inaad soo buuxisid iyo inay aad muhiim u tahay inuu dadku si ay ganacsigooda oo xaq u noqdo sida maqaayadaha iyo dukaamadaha iyo waxa la mid ah inay soo sameystaan waraaqada caafimaadka ayadan waxyaalahan ka hadli doonaba kamid ah insha Allah taala waa arrin aad u fudud laakiin Soomaalida sida badan ay ku dhibantaan laguna dhibo haddii aan bilowno kii koowaad oo aan dhahnay sole proprietorship muxuu yahay waa ganacsi oo hal qof oo shakhsi ah leeyahay halka qof oo shakhsiga ah waa qof soo baxay ama Kaylija ama Belfield ama Philippi iyo meel lamida intuu yimid asugu irid ka wsaday ganacsi ka furtay amba xawlaad yar iska furtay macnaha shakhsiyan qofkaas ganacsigiisu muxuu u qaban karaa horta caaman waa wax iska fudud oo in la furto waa la socotaan dib ma lahan in oo shuruuc fara badan iyo shardiyo oo dawladdu kaaga xiran oo fara badan ma jiro qarash oo ku go'an oo lagu leeyahay ilaa intaan inaa haysato oo lagu leeyahay ma jiro waa iska fudud yahay qofka shakhsiyan iskala ganacsigana faa'iidada dhan ay aadaa oo maartay wax aad u fudud weyn waa ganacsiga Soomaalidu ugu baanta waxa la yiraahdaa sole proprietorship muxuu dhibaato leeyahay marka disadvantage-kiisu muxuu yahay horta caaman sole proprietorship ama sole trader waxa loo yaqaan ganacsiyada kaliga ah oo aan sharciyeysnayn waa alla wixii khasaaraha ku yimaada qofka bini'aadamka in uu lacag oo ku shaqeysto amba bangiyada amba kambaniyaasha kale ay ku aaminaan aad bay u dhib badan tahay qof shakhsi lacag la iska masi karo oo aan sharciyeysnayn kambaniyaasha markay rabaan inay sida Coca-Cola iyo kambaniyaasha weyn ay kula macaamilaan awal kambaniga ay rabaan inay shuruudihiisa soo baaraan inuu lacag haysto inuu magac weyn leeyahay inuu oo mataqaana hanti ma goortaa leeyahay laakiin wixii maadaama ay waxa hal qof oo shakhsi ay tahay qof intuusan alaabta ku dajin buu lacagta ka rabaaba marka waana dhibaatooyinka Soomaalida ganacsigeedana aad uga horumarto xaqiiqiyan hortaagan sida badan maadaama businesski ninkii lahaa iyo ciyaalkiisa iyo reerkiisa iyo familkiisa oo dhan ay ku wada jiraan oo qof walba oo meel maartay isaga dafaqsanayo sida badan businesskaas wuxuu ku dambeeyaa inuusan mataqaanaa uusan cirib dheer uusan reebin oo maartay fashilmo sida Soomaalidu dhahdaa mataqaanin iyo xoolihiisba kala ma haraan laakiin haddii qaacidooyin culculus iyo shuruudo oo ku lahaan lahaa macnaha dhibkaas ma dhaceen oo kambanigu iyo shakhsigu uu kala har lahaayeen taas waa haddii aan uga baxno waxaan u gudbaynaa partnership amba mataqaanaa ganacsi ka dhexeeya Soomaalida
shirkooda xaqiiqiyan garaha faraha badan oo amba Sheekh Cabdullaahi loo geeyo masaajidka amba oda dhaqameedyada loo geeyo amba maalin walba aan maartay aan guryaha iyo hoteelada iyo buundooyinka aan u fadhino waxay ka imaataa partnershipkan laba qofood oo shirkooday saddex qofood oo shirkooday oo aan shuruudo sharciyo kala xuduuda aan yeelanin oo markii maartay wixii ay yaraa qaldamaan ay colaad rasmi imaanayso iyo dhibaato kala guud arts waxa la yiraahdaa partnership waa shirko sida badan waxay dhex martaa hal qof ilaa 20 qofood South Africa hadii wax ay gaaraan 20 qofood partnership lagama dhigi karo sharciyan faa'iido ay leedahay maxay tahay waa fududahay intii laba qof isku imaato ay hal mar ganacsi la bilaabato inay qofku ay dadku ganacsiga marka isla furnayaan oo ka soo qaad qof oo guriga keeno qof oo lacag keeno qof oo baabuur keeno qofna oo mataqaana xirfad kale oo keeno qof oo intuu lacagta dhiibo inta kale ay ka shaqeyso waxyaalaha ay leedahay kala way oo maartay lacag badan la isku soo aruuriyo waa fududahay in dadku ay xirfadooda isku darsadaan way fududahay qof walbana hadii qalbi fiyo lagu shaqeeyo in qof walba dantiisa waxay ku jirtaa inuu ganacsigan hormaro marka hal qof wuxuu hormar lahaa inay 5 qofood hormariso way ka fursad fiicnaan inay hormarto la marka caqabadaha ka hor imaan kara partnership-ka maxay yihiin horta waxa la yiraahdo waxa jira limited liability arintan waxaan rabaa in Soomaaliya aad u dhageysato kulay dadku way sharciyooba doona mar dhow insha Allah ka soo qaad partnership-ku dhibka ugu weyn oo ay leedahay waxa weeyaan hadii qof kamida dadka shirkada kugula jira ganacsi kale oo uu leeyahay oo ku qaamoobo ama oo ku musallifo qofka asiga mataqaana lacagta kule amba hantida kule waxay xaq u leedahay inay adiga oo aan ganacsigaas kala shaqo ku lahayn ay hantidaada qaadato arts aad baa loo fahmaan maleynaya macnaha waxa weeyaan hadii labada qofood ay partnership yihiin xuduud malahan qofka qaamoobaya ka soo qaad aniga ee xadiis baa shirka ah xadiisna wuxuu shirka leeyahay company kale oo leeyahay Sheekh Maxamuud anigii baa dhib gaaray waxaan haystaba maartay loo qaatay raahan wixii aan qabay waxa leeyahay mahad maxaa ku haray mahad waxa ku haray 100,000 oo ran hayaa mahad waxa la leh oo shirka leeyahay xadiis baa loo tagayaa waxa la qaadanay xadiis waxa la wuxuu lahaa okay maxaa ku sii haray mahad wallahi waxa ku sii haray 50,000 aye yaa kale xadiis shirka la sii ah marka oo mahad ay fiilay si taabanaysa Sheekh Maxamuud hay Sheekh Maxamuud kontanka ka soo qaad ilaa macnaha bangigu amba kambaniyadu amba shakhsiga oo kule mahad oo lacagtiisa ka helo qof alla qofka mahad la xiriir hantiisa uu qaadanaya marka fahmi kartaan waa arin aad iyo aad u fudud oo culus waxa la yiraahdaa marka unlimited liability macnaha deyntu meel ay ku istaagto male ilaa ay soo noqoto guriga la gadayaa baabuurta la gadayaa sirraha la gadayaa cid kasta oo circle-ka soo galna way saameynaysaa marka waa shuruudaha aad ugu dhib badan oo ay leedahay mataqaana in ganacsi dhibka kale leedahay waxa weeyaan dadku doo isqalaaf dukaanka inuu xirmaba imaanays ganacsiga sidaan haddan aragno maartay garto markay bilaabato horta bal dukaanka noo soo xiraa leeyahay kadib aan wax isku soo afgaranay inay haddana ay feel garoodo oo maartay ay wuxuu ay sida badan oo meel dheer gaarin ayadana aad iyo aad bay ugu badan tahay waxaan rabaa inaan arinta cashuuraadka aan waqti badan siiyo marka kuwan kale oo boobsiinaya close corporation oo CC loo yaqaano sharciyan hadda dawladda way joojisay oo waxa hadda sii jira maahan sanadka hore baa la joojiyay qofkii hadda awood u leh amba hore u haystay uu ku sii shaqeysan karaa laakiin qof kale hadda cusub oo gadan kara ma jiro shuruudeedu waa iska simple canshuurahana dib baan kasoo sheegi doonaa looga baahan yahay hal qof iyo wixii kamid ah baa ku shaqeysan kara qofka si siida leh waxa ugu muhiimsan oo ilaa waxa weeyaan idkod liability-geedu waa separate macnaha haddii ay qaamowdo ganacsigu qofka iskale shaqo kuma lahan waa fahmi kartaan awalaana ku celinaya ka soo qaad awal partnership waxaan dhahnay qofka ganacsiga leh
iyo ganacsiga iyo qofka ganacsiga la shirkada ah saddexda way saameynaysaa baan dhahnay soo maahan kan siduu cagsi uga yaa fiirso qofka adiga shirkada kula ah shaqaba kuma leh oo ganacsi kale kula leh laakiin adigi lahaa iyo ganacsiga oo CCD ama close corporationki shaqaba isku malahanba macnaha dawladdu waxay ula macaamilaysaa CCda qof oo kale adigana waxa lagu la macaamilayaa qof oo kale shaqo isku malin two separate entity laba xuquuq baad kala leedihiin okay taas macnaheedu marka maxaa weeyaan haddii partnershipku macnaha close corporationku CCdu ay dayn ay qaamoodo macnaha hantidaada qaaska shaqo kuma laha haddii adigu aad qaamoodana shakhsiyan aad u qaamoodana kambanigaada la yiraahdo CCda oo maha trading daarta u bixiyo shaqo kuma lahan marka wax aad iyo aad u muhiim ah sida badana dadku wax ay hantidooda gaarka ku yaan waxa weeyaan hantidii aysan kala saarin oo wixii baa isku qasan laakiin haddii hantida iyo ganacsiga iyo qofku wuxuu leeyahay kala saaro si sharciyan loo kala saaro macnaha ganacsigana wuu qasaari karaa qofkana wuu badbaadi karaa ama qofku wuu qasaari karaa ganacsigana wuu badbaadi karaa waana waxyaalaha ay sida badan dadka kale ay ku hormaraan BTY Ltd Limited ayadoo maxay tahay waa qof company ka kooban labo ilaa konton inta maartay ka kooban awoodna u leh inay wax alla waxay rabto ay samaysato oo ganacsi ah oo export import wax walba isugu jira haddii uu company dib soo gaaro shakhsiga dib ma soo gaarayo hadduu shakhsiga dib soo gaaro company dib ma soo gaarayo waa separate liability shaqaas kuma lahan maxaa ugu muhiimsan oo qofku horumarku gaari karaa markuu BTY Ltd Limited uu leeyahay horta qofka markuu business kaarkiisa uu ku qoran yahay BTY Ltd Limited baan ahay micnaheedu waxa weeyaan waa sharciyeysanahay dawladdan ka sharciyeysanahay company badan baa la macaamilaa mataqaanaa company oo culus baan ahay dad fara badan baan shaqaaleeyaa canshuuraan bixiyaa macnaha VAT baan bixiyaa macnaha mustawaha lagula hadlayo markaas wuxuu kun marka sareynayaa qofka ganacsiga yar oo aan macnaha lahayn wata maxaad helaysaa marka oo sharaf ah bangiyada baad sharaf ka helaysaa kambaniyadii oo macaamilka oo ka dhexeeya baad sharaf ka helaysaa dawladdii baad sharaf ka helaysaa sharciga inaad ku qaadato baa kuu fududaanaysa oo mataqaana nin waxaa tahay wadanka xuquuq ku leh marka faa'iidooyinka ay leedahay wax oo tiris leh ma ahan dhibaatooyin yaryar way leedahay oo macnaha inuu qofku awood uma lahan kambaniga oo private companyga public companyga wuxuu leeyahay qofku share buu gadi karaa laakiin kan haddii aad 5 qof tihiin qof lixaad laguma soo dari karo ayadoon shanta kale isku afgaran waa caqabadaha uu leeyahay oo la sheego laakiin caqabad weyn ma ahan marka aniga shakhsiyan waxaan Soomaalida kula talin lahaa 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 intay isugu tagaan inay BTY Ltd Limited ay ugu yaraan furtaan maadaama aysan CC fur karin oo CCda hadda la joojiyay waxayna keenaysaa in macnaha ganacsiga faraha badan ee aan sameeyno anaka oo Soomaali ah oo macna sameeyo oo aan ku gurgurtami karno dawladda oo kambanida ku gurgurtami karno oo aan mataqaanaa dad xuquuq la'aanahay maadaama qofka Soomaaliga qof wax badan wadan ku soo kordhiyay oo yahay waxaan ku qasbanahay inaan kambani sharciyeysan aan furano markaas cudud baa yeelana xataa fiiri lacagta aan ku shaqaysanayno waxay keeni kartaa inay cudud yeelato 10 qofood oo min 50,000 ah oo laakiin min hal qof u shaqaysanayso iyo 10 qofood oo min 50,000 ah oo hal waji ku shaqaysanayso waa fahmi kartaa macnaha faa'iidada iyo horumarka ay keeni karto waa la isqabanana shardi maahano marka horaaba sharciyo ay dawladdu u dejis oo in la isqabto dib maba ka imaan karaba sharciga waa loo kala baxayaaba marka arintan waa in arin aad iyo aad looga maartay fiirsad u baahan hadda waxaan rabaa marka inaan insha Allah arinta aan cashuuraadka oo aan waxyar ku laabto arinta cashuuraadka sida badan waa bixinaa horta laakiin xaquuq kuma helno waa wax aan bixino oo habeen maalin jeebkeena ka baxo laakiin aanan ku helin xaquuq maadaama aanan sida badan u soo marin
jidadka loogu talagalay horta koodii canshuurta qof kasta ee nool ee qaangaaray shaqeeya laga rabo waxaa la yidhaha pay as you earn bixi sida aada u heshid ninka 10,000 hela bishii ku canshuur maaha ninka 20 hela ninka 20 hela ku canshuur maaha ninka 30 hela ilaa ninka maartay mushaarka ugu badan hela dib baan kasoo sheegi doonaa insha allah waxaa jirto taas waxaa la yidhaha pay as you earn pay mid kale waxaa jirta la yidhaahdo SDL amba skills development levy taas waa maxay tahay micnaheedu waa micnaheedu waxa weeyaan qofku markii uu shaqaale oo u shaqeeyo shaqaaluhuna mushaarkooda marka la isku daro sanadkii oo 500,000 iyo wax lamid ah oo gaaro waxaa laga rabaa 1% mushaarka guud ee shaqaalaha inuu dawladda siiyo si shaqaalahaas haddii u baahdo in uu tababar iyo wax u diro ay maartay ugu soo bartaan tusaale baan idin sheegayaa oo cajiib meeshan ku saabsan 2010kii iyo 2011kii waxaan dhiganaa jaamacaddan la yiraahdo UCT marka waxaan ahayn ilaa 30 arday oo sida badan 95% company ka kala yimid 120,000 oo ran aniga shakhsiyan iga bixaysay ka waran qof kasta oo aniga ila dhiganay lacag la'aan buu ku dhiganay sababtoo ah company-yashi waxay waraaqad u qorayaan skills development levy hal 100% halka ay bixin jireen ay waxay u qorayaan dawladda waraaqad markaas waxay leeyihiin waxaan rabnaa 25 qofood ama 20 qofood in annaka wax noola baro maadaama annaka aan bixin jirnay lacagta marka dadka u shaqeynayay ayaka ay waxay barayaan degree iyo master level oo sarsare ayaka oo aan lacag bixinaynin oo ka faa'iideysanaya 100% halkii laga qaadi jiray maadaama anigu marka aanan mustawahaas aanan bixin jirin waxay ugu qasbanaatay inaan lacagta aniga aan jeebkay ka bixiyo ardada ila fadhido dhanna ay maartay laga wada bixiyo waana 100% Woolworths ka bariga leeyo kale 20 qof oo soo darsaday waa qiyaas kartaan Post Office Absa Bank bankada way soo darsadeen anigu baa iska bixinay inta kale waxa ka bixinaya kambaniyada marka wax in la sameeyo u baahan weeyaan waxaa jirto waxa la yiraahdo UIF oo 100% ah oo la yiraahdo unemployment insurance fund oo laga qaado mataqaanaa qofka shaqaale ah oo adiga ku shaqeeyo in fact tan waa sharci qof kasta oo ganacsi oo halkan fadhiyo waaba laga rabaaba wax oo kaftan gali kara maahan UIF waxa weeyaan ka soo qaad qofka week wuxuu ka qaataa 500 ama bishii 200 adiga company ama ganacsiga iska leh waxa kugu waajib ah inaad qofkaas mushaarkiisa aad ka reebtid 100% adigana aad ugu dartid 100% mushaarkiisa kale marka ka soo qaad 50 iyo 50 bay noqotay waa 100 ran soo maahan 100 ran waxaad u diraysaa wasaaradda canshuuraadka haddii berito qofkaas shaqo iyo wax la'aan ay ku dhacdo lacagtaas bay dawladdu siinaysaa marka waxa la yiraahdaa unemployment insurance fund adina waxaad bixinaysaa 100% kambaniguna wuxuu bixinayaa 100% okay inta kale waan isla garanayso maaha waxaan u maaneynaa arinta la yiraahdo VAT value added tax horta VAT waxaan qiyaasayaa qof Soomaaliya oo halkan jooga oo aan bixin ma jiro haddaad kira bixiso waad bixisaa haddaad koronto bixiso waad bixisaa haddii aad isbitaal aado soo daaweyso waad bixisaa haddii aad baabuur raacdo bas waad bixisaa macnaha waa qiyaas karaysaa haddii aad macro iyo metro iyo cosmos aad ka soo adeegatana waad bixisaa haddaad biyaan soo gaatana waad bixisaa marka waa arin aad iyo aad u muhiim ah inaan si fiican oo qayaxan aan maartay u fahanno VAT waxa loo soo kaabiyaa value added tax okay maxay qabanaysaa waxay qabanaysaa 4% ayaa shay kasta oo canshuur leh oo aad soo gaato macro iyo metro iyo cosmos iyo jambo aad ka soo gaato ayaa laga qaadaya lagala tashan maayo computerka ku jirta automatically waa laga reebanaya
alaabo yaryaro waxaa jira loogu talagalay dadka masaakiinta in lagu kiciyo oo aan la saarin sida rootiga brownka oo kale caanaha oo kale malayga oo kale galleyda iyo bariiska waxyaalaha daruuriga la yiraahdo vatka lama saaro waa free dowladda exempted bay ka siisay marka haddii aan hoos usii galgalno arrimaha vatka sharti waxaa weeyaan qofka haddii uu 1 milyan iyo wixii lamid oo sanadkii gado waa in uu vatka iska register garayaa haddii ilaa 50,000 oo gadana oo asigu danka leeyahan waa inuu intuu dowlad u tago ka codsadaa in loo furo marka vatku sida u shaqeeyaa insha allah vatka haddii aan kor ka soo baxo hal mar saan hore in kugu soo sheegaba CC-da iyo close corporationka iyo BTY Ltd Limited labada hoose wax alla wuxuu kambanigu oo faa'iido oo marka qarashaadkii daruuriga ahaa iyo kiridii iyo korontadii iyo biyihii iyo mushaarkii iyo waxyaale xamaaligii iyo wixii oo dhan markii laga bixiyo iyo mushaarkii ayaa waxaa lagu dhufanayaa 28% intaabay dowladdu cashuur ahaan uga rabtaa waxaa la yiraahdaa taa flat rate of 28%. Close corporation kuna waa sidoo kale asuguna waa 28%. markaas kadib waxaan u galeynaa arinta waxa la yiraahdo small businesska amba macro business taxations ganacsiga yaryar canshuuraha laga qaado haddii tan hoos baan ku sharaxi doonaa insha Allah haddii qofku uu sanadkii 150,000 oo gado macnaha wax canshuura lagama warabo waa iska mudlaq haddii qofku uu gado 150,000 iyo kowran ilaa 300,000 haddii uu bishi gado macnaha waxaa laga rabaa 1% canshuur ah inta ka badan 150 aas-aaska ahayd macnaha ka soo qaad 150,000 markaa gato canshuur lagama rabo haddii kowran 160,000 aa gadid meeqaa 150 ka dheeraad ah 10,000 kaas waxaa lagu dhufanayaa 1% inta baa laga qaadaa marka waa fahmi kartiin waa tabaran wax lamid waa lacag aad u yar wax aad iyo aad u basiid weeyaan ka soo qaad qofku wuxuu gaday 300,000 ilaa 500,000 qofku waxaa laga qaadayaa 1,500 oo gaar ah iyo 2% 1,500 oo hal mar laga qaadayo iyo 2% intii ka badan 300 macnaha 200,000 oo dheeraadkooda 300 u dhaxaysay inta u dhaxayso 50 noqon kartaa 60 noqon kartaa 200 noqon kartaa waxaa lagu dhufanayaa 2%. 1,500 oo cadad ahaan hal mar laga qabanaya haddii qofku uu gado 500 ilaa 750,000 waxaa laga qaadayaa 5,500 iyo 4%. haddii uu gado in ka badan 750,000 iyo wixii ka sii sareeya taa waqaas kartii marka ninkan waa bigahay sanadkii waxaa laga qaadayaa 10,000 iyo 5,000 iyo 500 iyo 6% ayada dhan dii la isku daro hoos baan ka tustoonaa wax aad u yar weeyaan tusaale ahaan ka soo qaad qofka haddii meesha laga rabay inuu 300 gado 150 ilaa 300 oo gado 200,000 oo gado 50,000 oo dheeraad oo gado macnaha 50,000 waxaa canshuur oo koraysa only 500 oo ran sanadkii oo dhan haddii uu 400 meesha laga rabay oo 400 oo gado laakiin 300 ee canshuur dhaaf ahayd macnaha 100,000 oo ran baa canshuurta koraysa haddii 100,000 kun lagu dhufto tusaale ahaan let me show you here maya just wax kala raayna tuso marka waa fahmi kartii marka wuxuu waa wax oo aad u yar haddii uu qofku 800,000 oo gado laakiin aas-aaska uu ahay 750,000 50,000
unbaa laga qaadaya oo dheeraada. kontonkaas kun marka waxay noqonaysaa ayada dhanba 18,500 oo hal sano loo qeybiyey waa 12 bilood aad u qaybinaysaa. waa fahmi kartaa marka bishii inta ay noqon karto wax aad iyo aad u kooban. tan tusaale yaraan waxaan ka bixiyey tusaale waxaan ka bixiyey sida oo VAT u shaqeyso 28% u shaqeyso oo close corporationki iyo kii la dhihi jiray muxuu ahaa magaciisii BTY Ltd limitedki ka soo qaad waxaad gaday 200 kun oo ran aad gaday waxaad ka jaraysaa lacagtii aad ka soo bixisay. farqiga u dhaxeeyo oo macnaha faa'iidada gross profit ka leeyahay waa 30 kun. 30 kun waxaad ka jaraysaa wixii qarash ku baxay marka waxaan ka soo qaaday 10 kun oo ran. macnaha faa'iidada netka ee kugu soo aaday waa 20 kun oo ran aan dhahno. haddii 20 kun lagu dhufto boqolkiiba 28 waxay noqonaysaa 5,500 ma 5,600 5,600 oo aad ku heshay company weyn oo muxtarim ah oo amba CC ah amba BTO Ltd limited ah oo muxtarim aad ku tahay oo intaas ah oo adigana aad qaadanayso markaas 14,400 oo ran. dowladuna ay halka sano dhan ay ka rabto 5,600 oo ran. marka macnaha xaqiiqiyan marka la fiirsho waa lacagteen oo baxaysa oo aan magacna ku helayn. walo aan qiyaasay aaminsanahayna Soomaaliya sideeda badan waliba sanadihii la soo dhaafay inay aad iyo aad ay u wada sharciyeysan yihiin. kan hore u soo sheegay kan waa VAT-ki marka VAT-ka sida badan Soomaaliya aad iyo aad bay u wareertaa sababtoo VAT-ku VAT marna adigaa wax hela marna adigaa wax laga helaa. marna adiga lacag ka maqan tahay marna adiga laga rabo in lacag lagu soo celiyo. tusaale ahaan marka haddii aan faadka sharaxno wax yar horta haddii aadan sharciyeysnayn adiga unbay horta wax kaa baxayaan ee adi waxba kugu soo noqon maayaan. sababtoo markii adiga wax soo gadanaysa maba lagaala tashanayaba. yaa dhiban marka ninka lacag laga soo qaatay inuu soo ceshto awood u yeelan waayo soo ma dhibana. dib uga fikira arrintan sidee u shaqaysaa marka. tusaale aan usoo qaadano inaan aaday aniga maantay macro waxaan soo gatay alaab 20 kun oo ran ah si ay tusaale noogu fudaado. alaabtan 20 kun waa alaabtii u baahnayd in VAT la saaro oo macnaha bariiska iyo caanihii iyo waxyaalihii aan sheegaynay kuma jirto. 20 kun aan kusoo adeegtay macro isla markii waxay isaarataba boqolkiiba 14 waxay noqotay 2,800. alaabtii intaasi aan ugu fadhidaa mugti suuqan gee alaabtii waan gaday. waa kolomkan waxaan ka hadlayaa bidixda insha Allah. alaabtii waan gaday faa'iiday wax baan saartay 22 kun baan gaday. 22 kun haddii aniga waxaa igu waajib ah inaan qof kasta oo iga gato aan boqolkiiba 14 saaro maadaama anigaba laysoo saaray saa iyo lacagtii aniga igu soo noqoto. qofkii baan saaray boqolkiiba 14 kastamarkiiba waxaan ka qaaday 3,080. haddii marka 3,080 oo anigu aan kastamarka ka qaaday iyo 2,800 oo aniga ay macro iga soo qaatay aan kala jaro maxaa ay soo harayeen 280 ran. 280 ran anigu ma lihi marka dowladda iskale waa inaan wasaaradda cashuuraadka siiyaa. ma ku celiya taas ma la fahmay waa ku celiya dhageysta. 20 kun baan alaab kusoo adeegsaday kusoo gatay aniga macro waxay soo saaratay oo aysan igala tashaneen oo faad ah 2,800. alaabta dukaankayga baan keensaday waa baakintay bishii baa dhammaatay wixii baan isku dhuftay waxaa ii soo baxday inaan gaday 22 kun oo ran.
22,000 oo ran maadaama aniga aan ahay nin sharci ah oo shaqaysto waxaan ku qasbanahay inaan qof kasto aan wax gadanayo aan 14% aan saaro oo waajib ay ugu tahay haddii kale dambi baan ku jiraa customerka lacagta aan saaray aan wax gadanayo isku aruuriski bishii oo dhan waxay noqotay 3,080 maadaama marka anaan customerka 3,080 aan ka qaaday anina ay macro iga qaatay 2,800 waa in la kala jaraa Soomaa amba aan lacag yeeshaa ama aan lacag leegu yeeshaa markii aan kala jaray lacagta aniga aan qaaday iyo lacagta aniga laga qaaday waxa ay soo hartay 280 oo aniga igu dheeraad ah waska cadda 280 kaas waa inaan u celiyaa wasaaradda canshuuraadka ani waxa dawladda iga rabtaa 280 ran inaan u celiyo oo aan customerka uga qaaday lacagteedii maahan dhinaca kale marka dhinaca midig aan aadno ka soo qaad waxaan soo gatay alaab 25,000 ah 25,000 maakar waxay saartay 3,500 alaabta dukaankii baan keenay Kuwait baan ahaa ma aanan wada gadin 20,000 baan gaday 20,000 canshuurta saaran waxay noqotay 2,800 maadaama aniga ay maakar iga soo qaatay 3,500 anina aan customerka ka qaaday 2,800 haddii labaas la kala jaro waxaa soo haray 700 oran 700 oran waa su'aal idan dhex taalo ma aniga iga maqan tahay mas aniga igu dheeraad marka aniga maakra ma aadi kara marka maakra iyo aniga waxaa noo dhaxeeya dawladda Soomaha dawladda baan aadayaa marka waxaan u diraa dawladda statement oo aan leeyahay aniga bishaan 700 oran ayaa maartay iga maqan 700 oran waa inaad ii soo celiso waa inay marka 700 aniga ay dawladda ii soo celiso marka lacagtan oo maalin anaga nagala daldalanayo oo macro iyo metro iyo cosmos iyo cosmo iyo country fair iyo tastrum ay naga daldalanayaan haddii aan saan u shaqeyno in fact lacag in naga baxs ka dhaaf aniga lacag noo soo noqon lahaydba haddii san lacag noo soo noqon dad xurmaysan baan noqon lahayn oo magac iyo mustawa wadanka kule wixii su'aalaha waa soo jawaabi doonaa insha Allah 2 minutes wax maxay errorta okay waqti fiican tii canshuuraadku waa intaas wixii dheeraa dib aan u hadli doonaa waxaan rabaa insha Allah inaan arrin yar oo hadda soo korortay oo serious anaga agteena ka ah inaan wax yar ka dhaho saa ula socotiin wasaaradda trade and industry Rob Davis wasiirka uu ka yahay waxay wadaa arrin culus arrinta culus waxa weeyaan waa in qof kasta oo ganacsada ah ha yaraado ha weynaado waa in uu license oo soo samaysto koodort laysanka intuu ka soo samaysanaa dawladda hoose oo ka dhex shaqaysanayo ayuu ka soo samaysanaya laysanka sharuudihiisu laga damacsan yahay in la furo dhib ma laha marka laakiin waxyaalaha ka dambeeya baa dhib badan tusaale ahaan haddii la yidhahdo laysanka qofku waa inuu ID leeyahay tusaale ahaan annakan aan haysana waraaqad qaxooti macnaha waa sharci laakiin automatically annaka nagu ah caqabad daraato wasiirka oo raadi ku jiraan telefoon u diray raadiye waan la hadlay waxaan ku yiri arrintan ma arrin loogu talagalay in qaxootiyaasha lagu dhibo oo dadka shaqaysto oo refugee permit kale macna arrin in lagu dhibo loogu talagalay miya mas waa arrin aan discrimination ku sameeyeen in ayaka iyo kuwa ID gale aan la kala reebin asiga wuxuu yiri qof kasta oo sharci haysta oo ay ku qoranta sharcigiisa waa inuu ganacsan karaa wax dhiba kuma hayso markaan ka soo qaadno tusaale ahaan inaysan dhib nagu haynin in aan ganacsigii furano aan ka soo qaadno taas tusaale ahaan laakiin shuruudaha dhibka badan ee haddeer taagan waxa weeyaan haddii uu qofku lagu qabto arrin aad u fudud ka soo qaad hal funaanad oo Nike ah amba Adidas amba sharciyeysan ayaa waxaa lagu qabtay ganacsigiisa ewel dawladdu waxay sameyn jirtay way imaan jirtay alaabta bay ka qaadan jirtay ganaax bay u qori jirtay way ka tegi jirtay soo saas maahan hadda saas ma jirto waxay sameeyaan arrintan fadlan waxaan jeclaan lahaa in ay arrinta Soomaaliya aad arrintan ay u dhiga nuglaato
ولو أن جعلنا أنا مركلا بحث دير قسمه إن شاء الله كسوقات وحي سمينا وحلا هذا database أو ودن كودن ككوبان أو قفك شخصي وحي أيكو شرع درو أركان أيكو قبتين أي قلنا المعلومات كيس قفكم مركز كابتن لو قبته بي جوهانسبرغ يكون تكون اي حدود كحدود 5 سنه ganacsi kama sameyn kara masoo 10 sano waan soo baari doona ganacsi kama sameyn karaba license daba ma loo furay marka dad oo 100 qof oo awal alaab inay qalad ahaan lagu qabtay oo iska sii ganacsi jiray inay sii ganacsan baa dhici doonta marka in arintaas ay Soomaali aad iyo aad uga feejignaanaataan teeda kale anaka sida badan waxaan ka dhex ganacsanaa dad anaka horror iyo hostile nagu ah oo dib badan nagu hayo oo nugula dhaca oo nugula dilo oo maartay nugula goba ganacsigeena ka waran hadii nugula qasbayo in aan meeshaas aan ka dhex ganacsanayno aan ka codsano inay laysanka nasiyaan waa caqabad kale weyn oo anaka na soo wajihi doonto tan saddexaad oo aniga xogaa walaaca badan hadda ugu abuurtay waxa weeyaan مسكحة إلهك سارة محيد نيو تصدق هذا مارت أنا وحقا علاس كوين وقبت وحيان وأنا قاعد أفكر ها مفروض ذا هدي مر قفكو أو قاموبو أو أي دولة وأرت إنه جناح صدان نقضه أو دم بجاس أو قلا إن أو دب دم أو جناح صدان مفروض ياد بودي برانسان أنتي آدي سا مركب بوليس ريكور كذي بآيسا هما فيرس ريكورد كادي بآديسا لايسن ganacsi kaadi record kaadi baaadaysa waarin aad u dhibbadan waxa kale oo kasi dar waxaan oo dhan askarta booliska ee city councilka waxa la siiyay awood buuxda qof alla qofka ay arintan ku qabtaan inay automatically ganacsigiisa u xiraan taasna waa arin aad iyo aad imagine nin oo boolis oo intuu ku yimaado ku yiraahdo arintan aan ku qabtay laysan iyo waxba ku gooymaayo عشور كوج معناه إن جناح كوجون مايو دكان كحر حنون كيدبك أي لاده مركا أرنتو أرن آد دبضن ودن كو دم باك قيلي جامعة دم باك قيلي حرير كجناح سج أو دم باك قيلي لكن واحد مدة أرن عندنا لقلة شندون إنه تاي صابتو حويان ما دام ودن كأورك وجبدن ويا ANC حكومة وسيرودن أي أنسحيان برلمان كانوا أنسحين دونا مركا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته